oo faahfaahsan ayaynu isugu iman doonaa saacadaha soo socda hadda si toosa ayaynu wararka oo dabcan warbixinahooda u fara badnaayeen in wax ka ogaana natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinka Soomaaliland ee degmadaanka lagaga dhawaaqay komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo kaga dhawaaqay ayaa barnaamijkan si toos ah ugu eegi doona ilaa iyo hadda marka la eego degmooyinka qaarkood waa lagu dhawaaqay qaarkoodna wali waa kuwa laga dhuur sugaya sida magaalooyinka waaweyn oo kale waxaanu barnaamijkan si toos ah isku dul taagi doonaa basaacadan hadda aynu ku sugannahay iyo warbixinaha ugu dambeeya goobaha codbixinta goobaha tirada laga codbixiyayaasha tiradooda lagu tirinayo si wariyaasheedu goobjoog ugu yihiin macluumaad aan uga ogaano waxaana barnaamijkan si toos ah idigu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee natiijooyinka hordhaca iyo goobaha la tirinayo intaba inta aynaanu gudbin wariyaasha telefishinka qaranka Soomaaliland oo ku sugan goobahaasi kala duwan iyo magaalooyinkaasi ay ka socoto codbixinta oo mid aynu dul istaagi doono isla barnaamijkan oo si toos ah aynu u eegi doono bal xaaladihii ugu dambeeyay ee halka ay marayaan natiijooyinka tirintooda lagu guda jiro iyo kuwa lagu dhawaaqay oo hadda sheekh ugu dambeysay dabcan saaciyar mid ka hor lagu dhawaaqay oo dabcan wariyaashu si toos ah ugu sugnaayeen oo markaasi sheekh natiijadii ugu dambeysay ahayd in xisbiyadu kursiyo siman ama xildhibaano siman oo min saddex ay ka haysteen bal sheekh marka laga yimaado waxaanu eegi doonaa warbixintana ku eegi doonaa ilaa iyo hadda degmo doorashooyinka lagu dhawaaqay komishanku sida rasmiga ah soo saareen iyo xisbiyadu natiijada ay ka kala heleen mas'uuliyiinta degmo doorashooyinka ee degmooyinka qaar ayaa ku dhawaaqay natiijada horudhaca ee golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi degmooyinka laga dhawaaqay natiijada doorashooyinka ayaa ah sidan degmada Garadag ee gobolka Sanaag ayaa xisbiyada qaranku kala heleen sidan xisbiga kulmiye 4 mudane xisbiga wadani 3 mudane halka xisbiga uu cidna uu helay 2 mudane natiijada horudhaca ee degmada Saylac ee gobolka Salal ayaa ay xisbiyadu sidan kala heleen xisbiga kulmiye 4 mudane xisbiga wadanina 4 mudane halka xisbiga uu cidna uu helay 3 mudane natiijada horudhaca ee degmada Lughaya ee gobolka Awdal ayaa ayana xisbiyadu sidan kala heleen xisbiga kulmiye 5 mudane xisbiga wadani 2 mudane halka xisbiga uu cidna uu helay 2 mudane degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa ay sidan kala heleen xisbiyadu xisbiga kulmiye 7 mudane xisbiga wadani 2 mudane halka xisbiga uu cidna aanu degmadaasi waxba ka helin degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex ayaa ay xisbiyadu sidan kala heleen xisbiga kulmiye 4 mudane xisbiga uu cid 3 mudane xisbiga wadanina 2 mudane degmada Taleex ee xarunta gobolka Xaysimo ayaa iyadana sidan xisbiyadu kala heleen xisbiga kulmiye 6 mudane xisbiga wadani 3 mudane xisbiga uu cidna waxba kama helin degmadaasi degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa iyana sidan lagaga dhawaaqay natiijada horudhaca ee golaha deegaanka ee degmadaasi xisbiga kulmiye 5 mudane xisbiga wadanina 5 mudane xisbiga uu cid 3 mudane degmada Buuhoodle iyo natiijada doorashada ee golaha deegaanka ee degmada si lagaga dhawaaqay ayaa waxa xisbiyadu kala heleen sidan xisbiga wadani 5 mudane xisbiga kulmiye 4 mudane halka xisbiga uu cidna uu ka helay 2 mudane natiijooyinkani waxa ay horudhac u yihiin natiijooyin ay komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya وهاجك داود الأدب ما سينهاي طبعا سهيب قول طبعا مركز warbixintan u dambaysa kamidaan waxa ka dambeeyay oo sheekh oo iyaguna min saddex xildhibaan markaasi ama saddex kursi ay heleen xisbiyada qaranka markaasi golaha deegaanka ee sheekh ka sharaxna hadda saacadan aynu joogno oo dabcan saqbarkii habeenimo ee Hargeysa saacadeeda ku dhow waxa ay goobuhu ka socdaan codbixintoodu ay markaasi tirintooda codbixintii la keenay ay wariyaashu si toos ah u wadaan haddaynu iminka eegno wariyahayga Khadar Quule waxa uu si toos ah ugu sugan yahay oo markaasi uu joogaa xarunta komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Maroodijeex oo halkaasi uu heegan ugu jiro isaga oo si toos ah warbixintan noogu soo gudbinayay Khadar Quule dabcan waxa markaasi uu kamid yahay wariyaasha heeganka ku ah isla xarunta Hargeysa oo degmada Hargeysa ay tahay ugu ballaaran in natiijadeedana sida aadka ah loo sugayo oo markaasi ay dad fara badan u dhag taagayaan oo markaasi aad degmada ugu meelaha laga codeynay ugu badan tahay tira ahaan dabcan noqonaysa degmada ugu badan Khadar hadda si toos ah ugu sugan yahay inuu maqlayo ayaan filayaa Khadar ma si toos ah ugu wareejin doona Khadar iyadoo xilligan ay ku dhowdaad ku sugan tahay dabcan si toos ah bal warbixintii ugu dambeysay
وهاجاك عبد الرزاق عثمان بدو مهاتسان تهاي هل كان أن كسوغان هاي أو حرونتا كوميشن كدوروشوين كسوماليلان ee gobolka Maroodijeex isla markaasna waqti xaadirkani ay ka socoto isku geynta codadka aadka u tirada badnaa ee laga dhiibtay gobolkan aan ku sugannahay oo ah Maroodijeex isla markaasna gobolka ugu codka badan isla markaasna guud ahaanba kana mid ah gobolka ay dadweynuhu aad ay u sugayaan codkiisa sida komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sheegeen waxa kan oo xarunta komishanka doorashooyinka gobolka Maroodijeex ka socda isku geynta codadkii gobolka Maroodijeex iyadoo ay hore ay soo dhamaatay tirintii codadka guud ahaanba gobolka Maroodijeex oo ay muraaqibiintii komishanka doorashooyinka aan iraahdo qaybaha kala duwan dhinaca ardaydii jaamacadaha ee qayb ka ahaa lana shaqeynayay komishanka doorashooyinku ay goobihii kala duwanaa ee hore doorashada ugu dhacday ay ku soo tiriyeen halkan waxa lagu checking gareynaya isla markaasna lagu hubinayaa sidii la isku geyn lahaa tiradaasi guud ka dhacday codka gobolka Maroodijeex isla markaasna mas'uuliyiin ka mid ah qaybaha kala duwan ee halkan ku sugan ayaa warar hoose noogu sheegay in waqti xaadirkan ilaa saaka ay tiriyeen 60 sanduuq oo ah gobolka Maroodijeex guud ahaanba tirada codadka laga dhiibtay gobolka Maroodijeex oo aad u badan iyo sanaaduuqda aad u badan sanaaduuqda ay tiradoodu gaarayso 690 sanduuq oo halkan ku jira ayay sheegeen in 60 sanduuq oo quraha ay tiriyeen tan iyo saaka isla markaasna shaqadu ilaa imika ay socoto oo ay kasii marba mar kasii dambaysa ay kasii baaxad weyn tahay isla markaasna ay hawshu kasii adkaanayso taasina ay dadweynaha ay u soo jeediyeen in natiijada ay ka warsugaanun guddiga doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan oo ah xarunta guddiga doorashooyinka ay guddigu ay si rasmi ah ay natiijada marka ay wada dhamaato tirinta codadka iyo isku geynta codadkuba ay si rasmi ah ay ugu dhawaaqi doonaan taasi oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dhagtaagayaanba in guud ahaanba gobolka Maroodijeex oo gobol aad u ballaaran isla markaasna ay hoos yimaadaan degmooyin aad u tiro badan oo kamid ah gobolka Maroodijeex sida degmada Cadaadley Sabawanaag Salaxley Faraweyne iyo guud ahaanba deegaamada kala duwan oo guud ahaanba degmooyinka aan soo sheegay codadkoogii ay si rasmi ah halkan ay ugu soo xaroodeen oo ah xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodijeex taasi oo si rasmi ah halkan ay u yaalaan guud ahaanba codadkii degmooyinkaasi laakiin sida ay mas'uuliyiinta komishanka qaar kamid ay noo sheegeen waxaan wali aan soo xaroon oo aan soo gaarin xaruntan oo ah guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland codkii guud ahaanba laga dhiibtay degmada Gabiley oo hoos timaada gobolka Maroodijeex tira ahaan taasi oo iyadana ay sugayaan isla markaas ay rajeynayaan in ay hawshaasi ay sidii lagu talagalay ay u dhamaato khadar aad baa mahadsan tahay waxaan filayaa waan kugu soo noqon doonaa halkaasaana dabcan si rasmi u joogtaayoo wararka ugu dambeeya ee weliba Hargeysa laga dhuur sugayo aan markaasi u soo gudbin doonaa waxaan si ku noqon doonaa oo ka gudbi doonaa khadar waan ka gudbi doonaa dabcan oo markaasi waxaan u gudbi doonaa gobolada kale sida aan tilmaamay oo kale iyagana gobolada kale waxa ku sugan dhammaan wariyaashii kala duwanaa ee telefishinka qaranka Soomaaliland uga soo waramayay guud ahaan natiijooyinka qaar waad haystaan sida aan tilmaamay gobolada degmooyinka lagu dhawaaqay uma baanin inta faraha badan loo xogtooda wada haystaan laakiin waxaan xoogga saari doonaa meesha aadka looga dhuur sugaya meelaha aan sida rasmiga ilaa hadda looga dhawaaqin natiijooyinka waxaan hadda tegi doonaa Gabiley oo dabcan oo ku sugan yahay ayaan la xaaji waxa uu joogaa xarunta Gabiley ayaan le hadda saacadan aan joogno tiradii way socotaa inkastoo Gabiley markii hore tiro khaldan la soo saaray haddana komishanka waa laga dhuur sugayaa oo dabcan waa la sugayaa ayaan le hadda adigan si toos ah kugu soo wareejin doonaa waxa aan doonayaan ku weydiiyay ilaa hadda oo saqdhaxa bal natiijada doorashooyinka sida u socdaan doorashada magaalada Gabiley ee caasimada gobolka iyadoo xilligan la galay wajiga labaad ee tirinta codadka ee doorashooyinka ee isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka gudaha gobolka Gabiley waxa hadda sidaab sameeyay uga socota tirinta codadka kala duwan ee dhiibteen bulshada magaalada Gabiley iyadoo la tirinayo in ka badan 185 sanduuq oo shacabka magaalada Gabiley ay ka dhiibteen cod kala duwan dhinaca kale waxa jira warar been abuura oo lagu soo baahiyay social media kuwaas oo tibaaxaya in magaalada Gabiley caawa laga dhawaaqay natiijada hordhaca ee golaha deegaanka degmada Gabiley taasi oo la xidhiidhnay gudoomiyaha komishanka isla markaasina uu xaqiijin gabi ahaanba aan wax natiijo ka soo bixin komishanka qaranka ee gobolka Gabiley isla markaasina haatan ay gacanta ku hayaan tirinta codadka kala duwan ee shacabka magaalada Gabiley ay dhiibteen
aad iyo aad baa mahadsan tahay dabcan saacadan baad si toosa ugu jirtaa su-aashaan doon waxa weeyaan gabiiley meelaha aadka loogu hadalhayn badan yahay bay ka mid tahay ee dhagaha aadka loogu hayo bal waxaad iga warantaa bulshadii gabiiley saacadan saqda dhexa ay dhaaftay dabcan sida iyagu u soo jeedaan arrintaa ula socdaan run ahaantii ilaa habeen hore ilaa caawa shacabka magaalada gabiley ma ay seexan iyagoo sugaya natiijada hordhaca ah ay soo gudbin doonaan komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka gabiley kuwaasi oo shacabka magaalada gabiley ay si weyn u sugayaan una dhegtaagayaan ogaanshaha liiska hordhaca ah xildhibaanada golaha deegaanka ee ka soo muuqan doona aad baa rumaysantay cabdirasaaq cismaan waayala xaaji iyo su'aab axmed daahir telefishinka qaranka gabiley tahay aad baan kugu mahad celinayaa dabcan wixii ka soo kordhana sidaasaad heegan u joogtahay oo aad u taagan tahay goobtii wixii warar soo kordhana daawadayaasha iyo anigaba si toosa ayaa dabcan markaasi aan idigu soo gudbin doonaa oo markaasi aanu eegi doonaa berbera iyaduna ka mid ahayd ama gobolka saaxil oo magaalada berbera natiijadeeda iyadana meelaha aadka loo sugayay ay ka mid ahayd oo saacadan aan hadda ku sugannahayna natiijadeeda tirinteedu ay markaasi wadaan komishaneeradu iyagana aynu ka sugaynay tahay cidda aynu codka ka sugayno in rasmiga ayna siiyaan ee gudoomiyaasha deegaanka ama mas'uulka ugu sareeya komishanka 7 xubnood cad iftax berbera jooga qaar fara badanna ay meelo fara badan ay joogan mas'uuliyiintaasi bal iyaga war ka soo bixi doona ilaa hadda hubinta ay ku jiraan natiijada meel fiican bay maraysaa mukhtaar baan toos u tagi doonaa magaalada berbera saacadan aynu joogno si toosa oo u jooga xarunta komishanka oo dabcan warkaasi ku dhuuray mukhtaar adaan kugu soo dhaweyn doonaa dabcan magaalada berbera bal wax bixin naga sii halka xaaladeedu dhinaca tirinta codadku marayso aad baad mahadsantahay cabdirasaaq kulley dadka ku dhaqan gobolka saaxil waxay si weyn ay ugu dhegtaagayeen tan iyo waqtigii ay doorashadu qabsatay in ay helaan xogo ku saabsan natiijada hordhaca ah ee xildhibaanada ka tartamayay xisbiyada qaranka ee kulmiye ucid iyo wadani sidii ay uga soo kala baxeen ilaa hadda waxaa ka socota gobolka saaxil ee tirinta codadkaasi oo komishinka qaranka ee doorashooyinka Soomaaliland uu ku hawlanaa sidii codadka loo tirin lahaa ilaa hadda dadka iyo bulshada ku dhaqan guud ahaanba gobolka saaxil iyo Soomaaliland waxay si weyn ugu dhegtaagayaan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka ee Berbera iyo sidoo kale 10 xildhibaan ee baarlamaanka ee ka soo bixi doona doorashadii dalka ka qabsantay 31 May ee aan soo dhaafnay hadda komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland waxa uu maanta gelinka dambe uu si xawliyo u bilaabay in tirinta codadka kala duwan ee ka soo xarooday 199 goobood oo gobolka saaxil ah guud ahaan gobolka saaxil 240 goobood oo 41 goobood ay yihiin degmada Sheekh guud ahaan tirinta codadka ayaa si weyn uga socota goob komishinka doorashooyinka Soomaaliland uu ka dangan yahay magaalada Berbera dadkuna si weyn ayay uga dhursugayaan in ay ku dhawaaqaan natiijada rasmiga ee kama dambaysta komishinka doorashooyinka Soomaaliland ilaa hadda waxa socota cabdirasaaq dadku in ay ka dhursugayaan wararka ay komishinku ay mar walba ay soo gaarsiinayaan gelinka dambe maanta warar been abuur ayaa soo galay qaybaha social media oo ay dadka qaarkood ay faafinayeen oo ahaa warar manawaalo la sheegayay in xildhibaan ay saas u kala heleen laakiin wararka waxba kama jiraan ilaa hadda bulshada iyo guud ahaanba dalku waxa uu si weyn uga dhursagayaa komishinka doorashooyinka Soomaaliland iyo sidii uu ugu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca ah ee xildhibaanadii golaha deegaanka iyo baarlamaanku sidii ay u kala guuleysteen ilaa haddana dadku waxay si weyn ay u sugayaan sidii ay magaranaysa u heli lahaayeen natiijada dhabta ah aad iyo aad baa mahadsan tahay mukhtaar oo ku sugan magaalada Berbera waxaan intan aan hawada ku jirnaa suuragal in lagu dhawaaqo natiijadan oo dabcan aan halkan si toos ah idiga soo gudbino daawadayaasha waxaan la socodsiinaa gobolada Soomaaliland ee wariyaashu ay ku sugan yihiin isla hadda hadii lagu dhawaaqo si toos ah xarunta halkan nooga daawan doontaan nala socon doonta mukhtaar bal magaalada Berbera iyada natiijadan la sugayo sidee dadku soo jeedaano bal xaaladeeda iyada ka waran dareenka bulshadu cabdirasaaq si weyn ay dadku ula socdaan wararka komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland ka imanaya ee ku aadan sidii loo kala helay codadka iyo waliba natiijada hordhaca oo ah warka ugu weyn ee bulshada gobolka saaxil ay caawa sugayso oo laga dhursugayo balgoorta ay dhameeyaan tirinta codadka sababta dib u dhigtay ayaa inta badan ahayd gobolka saaxil oo ay ku yaalaan deegaano adag oo qarfaa oo xeebahay oo codadku iyo sanaaduuqda qaarkood ay ku raageen halka qaarkood ay daadad xidheen halka qaarkood ay baabuurta ay magarasa waxyeello soo gaadho kale alxamdulillah laakiin shalay gelinka dambe ay si toos ah u soo wada hoydeen ilaa haddana komishinka iyo howlwadanidiisu waxay ku howlan yihiin tirinta codadka oo ay goobjoog ka yihiin xisbiyada qaranka ee kulmiye ucid iyo sidoo kale wadani ilaa imikana dadku waxay weli sugayaan ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee hordhaca ee 23 xildhibaan ee 13 ka mid ah ay maamuli doonaan degmada Berbera halka ay 10 ay noqon doonaan baarlamaanka doorashadii ka dhacday Soomaaliland 69 xildhibaan
oo ay 30 ka mid ah baarlamaanka u ordayaan ayaa ku tartamayay gobolka saaxil waxaana imika laga dhursugayaa uun bal xildhibaanada ku guuleysta natiijada hordhaca ah ee degmada Berbera oo komishanku sheegay inay shaacin doonaan saacadaha soo socda laakiin ilaahay hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland oo aan ahayn tirinta codadka intaas ayaanu kala soconaa kulli wararka ku saabsan komishanka iyo doorashada dalka ka dhacday waxaana wararkan iyo warar kale oo dheeraad ah oo ay ka mid tahay natiijada hordhaca ee kala socon doontaan warbaahinta qaranka Soomaaliland aad iyo aad baa muqtaar baadsan tahay halka sanad heegan hadii la yiraahdo ugu jiri doonta daawadeedkuna sidaasaan saacad iyo minimidii ugu soo gudbin doona goobta ugu horeysay lagaga dhawaaqo natiijada hordhaca haddaan ka yimaado Berbera dabcan saan idin sheegay halkan ayaan natiijada ka soo gudbin doonaa si degdeg ah barnaamijkan tooska aad la socon doontaan hadii inta lagu dhawaaqo magaalada Boorama ayaan iyagana tagi doonaa wariyaasha telefishinka qaranka Soomaaliland intii doorashada loo codeeyay wax hor taagan yihiin xarunta komishanka si ay warka ugu horeeyay idin soo gudbiyaan Abubakar Xasan Caafi dabcan waxa uu ku sugan yahay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal Abubakar baa si toos ah ugu wareegi doona oo isaguna khadka si toos ah ugu jira baalka natiijadii magaalada Boorama oo degmada Boorama iyadana aad loo sugaya maras Abubakar aan ku soo dhaweyn doona insha Allah mahadsanid Cabdirasaaq taageerayaashii iyo musharaxiintii kala duwanaa ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee u tartamayay doorashooyinka isku sidkan ayaa maalmaanba waxay ka dhur sugayeen natiijooyinka kala duwan ee horudhaca ee ka soo baxaya komishanka doorashooyinka ee gobolkan Awdal waxaana dadweynuhu ay rajo weyn ku qabaan in ay iyagu degdeg u helaan natiijooyinka musharaxiintii ay taageersanaayeen waxaana maanta natiijooyin horudhaca ay ka soo baxayeen degmooyinka Saylac iyo Lughaya halka deegaanka degmada Lughaya ay xildhibaanada ka soo baxay kala yihiin 5 xildhibaan oo kulmiye ah iyo 2 xildhibaan oo cid iyo 2 xildhibaan oo wadani ah halka deegaanka degmada Saylac iyadana ay kala yihiin 4 xubnood oo kulmiye ah 4 xubnood oo wadani ah iyo 3 xubnood oo xisbiga oo cida waana golayaasha deegaanka ee degmooyinka Saylac iyo Lughaya oo tiradoodu ay gaarayso deegaanka degmada Lughaya golayaashooda deegaanku uu yahay 9 xildhibaan halka deegaanka degmada Saylacna uu yahay 11 xildhibaan haddaba dadku iyaga oo weli sugaya natiijadii ayaa komishanka doorashooyinka oo aan la xidhiidhnay waxay ii sheegeen inay weli ku guda jiraan tirinta deegaanada kala duwan ee degmooyinka Baki iyo Boorama oo lagu rajo weyn yahay inay sida ugu dhaqsaha badan ay sheegi doonaan waxayna tilmaameen in natiijooyinkani ay u baahan yihiin ka fiirsasho iyo in la hubiyo waxaana natiijada horudhaca ee deegaanada Saylac iyo Lughaya noo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxaana ilaa xilliga aan hor joognaa xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal oo ay ka socoto shaqo xoog leh iyadoo sanaaduuqda qaarkood ay imiga soo xeroonayaan waxaana laga dhur sugayaa natiijada waqtiga ay ku dhawaaqaan komishanka aad baa maasan tahay Abubakar Xasan Caafi aad baan kaaga mahad celinayaa adoo xilli dambe ay tahay dabcan in haddana shaqada qaranka Soomaaliland xilligan aad u taagan tahay sidii warka ugu horeeya ee ay soo saari doonaan komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Awdal aad la wadaagtid bulshada oo hawshaasi ilaa muddadii doorashadu dhacday aad si toos ah heegan ugu jirtaan aad iyo aad baan idin wariyaasha kale ee gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan idin mahad celinayaa oo dabcan markaasi aan aad u mahadsantileeyahay intii aan leef ku guda jirnay sidaan tilmaamay sheekh ayay ahayd natiijada rasmiga ah meelaha lagaga dhawaaqay caawa saacadihii dambe ayna soo gaareen inagoo goobahan dambe leefka aynu soo marnay dhammaanteedna rajaynayna haddii iminka lagu dhawaaqo inaan isla imikaba si toos ah idila soo socodsiin doono oo aan idigu soo gudbin doono sheekh natiijadii lagu dhawaaqay waxa ay ka mid ah goobihii ugu dambeeyey ee intii maanta degaan la yeedhiyo oo caawa saqdhexe ku dhowaad ay soo baxday sheekh baynu eegi doonaa batirada kale heleen oo markaasi si toos aan u eegi doonaan dib ugu noqon doonaa dabcan
iyadoo mukhtaar cabdiraxmaan oo hadda khadka si toosa ugu jira aan weydiin doono sheekh bal waxyaale ka soo kordhay oo ugu dambeysay mukhtaar inaad maqlaysaan filayaa annagoo kaaga mahad celina weli heegankaad ku jirta bal sheekh wixii ka soo kordhay noo soo gudbe cabdirasaaq aad iyo aad buu mahadsan tahay wararka degdega ah ee hadda inaga soo gaadhaya degmada sheekhna waxay sheegayaan in lagu dhawaaqay natiijadii hordhaca ahayd ee golaha deegaanka ee degmada sheekh ee 5 sano ee soo socota iyo sidii ay u kala heleen xisbiyada qaranka ee ku loolamayay doorashadii dalka ka qabsoontay 31 May ee aanu soo dhaafnay gudoomiye ku-xigeenka komishinka degmada sheekh xasan keyd cabdilaahi ayaa hadda oo aan khadka kula xiriiray waxa uu sheegay in uu gudoomiyihii ku dhawaaqayaba u warramay warbaahinta dawladda natiijadii isagoo ii sheegay in saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiye iyo wadani uu midkiiba 3 xildhibaan uu ka helay golaha deegaanka ee degmada sheekh oo ah darajada C isla markaasna ay u tartamayeen xisbi kastaba 9 xildhibaan waxa uu sheegay in saddex kursi ay heleen 3 xisbi dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku loolamay doorashadii dalka ka dhacday kullay wararka ku saabsan natiijada magaalada Berbera oo iyadana ilaa imika la sugayo in lagu dhawaaqo 13 xildhibaan ee golaha deegaanka iyo 10 xildhibaan ee baarlamaanka ayaa lagu dhawaaqi doonaa saacadaha fooda inagu soo haya hadii Ilaahay yiraahdo sida ay noo sheegeen gudida sare ee komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland oo weli ku howlan tirinta iyo hubinta codadka kala duwan ee xildhibaanada wixii wararka ee dheeraada waxa kala socon doontaan warbaahinta qaranka aad baan kaaga mahad celinayaa mukhtaar oo dabcan aan rajaynaya inaad si toosa hadda aad ugu sugnaan doonto haddii wax ka soo kordhaan gobolka saaxil oo meelaha sida aadka natiijadoodu inay hadda dhowdahay ay u eg tahayna aan haddaba si toos idigu soo gudbin doono haddii ay waqti kala qaadatana mukhtaar halkaasi heegin noogu yahay oo daqiiqad inagu soo gudbin doono natiijooyin ka soo baxa deegaanada hoos yimaado gobolka saaxil iyo tan magaalada Berbera ee golaha deegaanka iyada la sugayay laftirkeeda wixii ka soo kordhanay iyadana dabcan aan markaasi isla halkaasi mukhtaar adii yar joogi doonto weli waxaan ku socon doonaa wariyaasha telefishinka qaranka Soomaaliland ee heeganka ku ah goobaha kala duwan waxaan tagi doonaa gobolka ugu ballaaran oo ah gobolka Sanaag oo dabcan kala fogaanta oo gobolkaasi kala fog yahay keentay in xarunta Ceergaabo goolo dambe ay soo gaaraan natiijaduna caawa ilaa xilligan komishinku ay shaqeynayaan Cabdirasaaq ayaa ku sugan dabcan magaalada Ceergaabo oo si toosa xarunta u jooga Cabdirasaaq baan weydiin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Ceergaabo iyagana meelaha natiijadooda la sugaya Cabdirasaaq halkaan kala hadlaynaa caawa joognaa waa magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo arrimihii doorashooyinka iyo halkii ay marayaan hadda ilaalaana waxa laga warsugaya waa komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag ku sugan taasoo la doonayo sidii codadka loo kala helay iyagoo weli ku guda jira tirintii codadka xildhibaanada sidoo u kala heleen weli waxay ku mashquulsan yihiin sanaaduuqdii tirintoodii ayaa weli ilaana ka socota komishanka xarunta komishanka ee gudaha magaalada Ceergaabo taasoo 3 xisbi qaran iyo mas'uuliyiin kasta oo ku sugan halkaasina ay ku qanacsan yihiin oo sugayaan natiijada ka soo baxda waxaana la filayaa goordhow ama saacadaha soo socda ama ilaa subax haddii Ilaahayna gaarsiiyo in lagu dhawaaqo natiijada hordhac dabcan Ceergaabo dib baan ugu noqon doonaa warbixin fara badan oo ku ogaan doonaa dabcan iyadoo wariyaashu heegan inagu yihiin magaalada Burco ee xarunta gobolka markaasi Togdheer ayaa iyagana deegaanada lagaga dhawaaqay markii laga yimaado oo markaasi eeboodla kamid tahay waxaan eegi doonaa deegaanadii kale iyagana laga dhuur sugayo in fara badan markaasi la sugayo kaltuun iyo komishineer fara badan baa ku sugan iyagana oo xarunta gobolka markaasi Togdheer ka shaqeynaya سعيد أيامك هذا ستة وسيسقون وشوجا حرونته أي كدع دونتو دورشوينكو أي كسر عد بحنتو أي كسر عطة ساعات ضمبه السلام ويدين دونالك حالكم مرة يين وركي وجدا بي يضو حلقا لوكال السياحانين ترينتا عضاتك إيو إحنا تيجي دويهين يبل وركي وجدا بي سعيد waxa uu hadda markaas si toos ugu sugan yahay way maqla samaan dugsiga Sheekh Bashiir ah goobta lagu tirinayo codadka gobolka Togdheer iyo degmada Burco oo komishanka doorashooyinka saacadihii ugu dambeeyay ilaa xalay ilaa maanta ay ku guda jiraan tirinta codbixiyayaasha dadka codadkooda dhiibtay gobolka Togdheer hawshaasi ma yara 510 goobood ayaa gobolka Togdheer laga dhiibtay codka 510 ka goobood marka laga reebo dibadda
390 goobood oo degmada Burco ayaa lagu hawlan yahay tirinteedu waana ugu mashquulka badan ee weli ay ku guda jiraan komishanka doorashooyinka qaranku hawshaasi dadkuna si weyn ayay u sugayaan maxay hatay annaguna waxaan diyaar u nahay ama mar kastaba aan u soo diyaar garoonay sidaan u soo tabin lahayn wararka ugu dambeeya ee ka soo baxay komishanka doorashooyinka iyo codadka ay dhibteen taageerayaasha xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer aad baa mahadsantahay magaalada gobolka Togdheer meelaha sida aadka isna looga sugayo kamid ah sidaan tilmaamay bal waxaad iga warantaa dareenka dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer sida isagu markaas xaalkiisa iyo iyagu sida ugu soo jeedaan arrintan uga dhowr sugayaan cabdisaqadiyan kaagu waramo dareenka dadka suuqyada weyn ee magaalada Burco way amran yihiin dadkuna way soo jeedaan waxay u dhagtaagayaan isla markaana ay filayaan natiijada saxda ah ee ka soo baxda komishanka doorashooyinka xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer goordhawada si fogaan waxa lagu dhawaaqay degmada Buuhoodle oo hoos timaada gobolka Togdheer golaheedii deegaanka halkaas oo ay kala heleen saddexda xusbi xildhibaanadii ku tartamayay degmadaasi codkeedii halka uu xusbiga kulmiye ka helay afar xildhibaan xusbiga wadaniina uu ka helay 5 xildhibaan oo golaha deegaana xusbiga ucudna uu ka helay 2 imikana waxa si weyn loo sugayaa isla markaana dadku ay naawilayaan marka ka dambeysay saacadda ka dambeysay minidka ka dambeeya natiijada saxda ah ee ka soo baxi doonta ama horudhac ah ee ka soo bixi doonta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo halkan ku hawlan tirinta codadkii ay dhibteen dadka gobolka Togdheer aan ku sii sugnaan doonaa goobtan si aan u soo gudbino hadba waxa war ee ka soo kordha komishanka doorashooyinka qaranka ee la xiriira tirinta codadka iyo natiijada horudhaca aad baa mahadsantahay Saciid halkaas weli shaqada ka sii wadi doontaan waan idigu soo noqon doonaa inta degme iyo goboleedkan soo marnay kolba kii ugu horeeyay natiijada markaas si rasmi ah looga dhawaaqo idinkana waxaan idin rajeynayaa daawadeena si toos ah noola socon doontaan oo hawsha baaxadda leh ee wariyaasha kala duwan ee heeganka u yihiin idinkuna aad nala daawan doontaan oo natiijada aanu idin soo gudbin doono ugu talagalay hadda khadar baan bal dib ugu noqon doona Hargeysa wuxuu soo dhaxmaray saacadan qayb kamida bulshada oo weydiinayay bal dabcan way soo jeedaan dad fara badan natiijada sugayaan xilligan oo saacadu dabcan ay ku dhowdahay 12 marka kala barkii habeenkii ayuu hadana dadka soo weydiiyay su'aalo kala duwan oo eegaya xaaladda Hargeysa sida looga dhur sugayo komishanka doorashooyinka gobolka iyaguna hawl fara badan gacanta ku hayaan dareensanay baaxadda ay leedahay yaa shaqayaan khadar baa amika balantoos ku wareejin doona iyo bulshada intuu la kulmay dadka komishanka hormaray iyo dadka magaalada bartankeedu hadda soo baxaan filayaa wuxuu joogaa dabcan hadda ku sugan yahay bartamaha magaalada Hargeysa ilaa Hargeysa eriyadaas hadda ku sugan yahay si toos ah khadar balan ku wareejin doona bulshadu sida arrintan oo arkaysa caawa Hargeysa uga dareensantahay sugitaanka doorashooyinka وهيك داود يال إمك وها بربركي تاجر مت كم ده دنيرة كون دقن عاصمة هرجيسة ورا يعني دوان دلك جمهورية الصومال ما أنتي سنتي وحكد عضي دورشة نسبركن سيدرتي الحمد لله هرت دورشة ودورشة لجوا ذا قناعسين هاي أو فورا تشستيجا ودورشة دي لجوا كلا برين لها الصوماليلان وحنا الصوماليلان قول بقاعدي ودبدي قول شيء كشرتها وأنا كفر أحسن هاي دورشة وأنا كور سجنا وحكست صوبها natiijadii weli may soo bixin guddigii komishanka doorashooyinka weli kuma dhawaaqin dadkiina aad bay u taagayaan muwaadiniinta waxa tahay sugaya sabab warta arintaas horta waxaan leeyahay muwaadin kasta reer Soomaaliland waxa uu farxada in ay ku codeeyaan fair and justice waxaan leenahay doorashada waqtigeeda iyo xilliga ay komishanka qaranka Soomaaliland soo saaraan baan suganaa waana ku faraxsanahay waana stable Soomaaliland imika xaaladdan lagu jiro waana happy baan ku nahay marka waran doorashadii dhacday ee nabadgelyada ku dhacday iyo sidii dadku codeeyeen iyo sidii lagu soo baxay iyo doorashadii ku cusbid Soomaaliland ee labada doorasho mar kaliya la wada qabtay waa markii ugu horeysay ee taas oo ka dhacday Jamhuuriyadda Soomaaliland arintaas maxay sameynaysaa waa doorasho horta tartankeeda leh oo dadaalkeeda leh musharaxiinta soo sharaxay iyo guddigii iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdiba ay ku dhiiradeen inay qabtaan doorasho loo wada madax banaan yahay doorashadaas oo ka duwan doorashooyinka hore waa laba culays oo isdul saaran
bay Soomaaliland u dhabar adeegtay dhalinyaradeeda iyo bulshadeedaba waa doorasho alxamdulillah aan ku faraxsanahay aad u mahadsan tahay daawadayaal weli dhalinyarada kala duwan ee caasimadda Hargeysa ayaan ku sii socon doonaa dareenkoogana waan weydiin doonaa ku soo dhawaada telefishin qaranka Soomaaliland weli natiijada lagu ma dhawaaqin shacabka caasimadda tahay waxaad sugaysaa natiijadiisa rasmiga ahayd ee lagu dhawaaqi lahaa arintaasi sidoo aragtaa aad iyo aad baan walaal ugu faraxsanahay dhammaan reer Soomaaliland oo una baliyinaya waxaanu ka mid nahay dadka natiijada u dhigtaagaya codbixinta natiijooyinka baarlamaanka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in guul ka soo bixi doonto maxaad filaysaa mar haddii muwaadin baad reer Soomaaliland codkaaga diibatay si sharaf leh oo karaamo leh doorashada ku dhacday nabadgelyo ku dhamaatay waqti xadarkan komishanka doorashooyinka saddexdii muxuuha xisbi Soomaaliland ka jiray arintaasi ku mashquulsan yihiin shacabku u dhagtaagayaan arintaas soo aragtaa wallahi waxaan arkaa si qurux badan waxaan leeyahay ka hor dhici mayno natiijada un baan sugi doonaa insha Allah si guul inoogu dhacday inta dambe waxaan sugayaa insha Allah in si guul inoogu dhamaan doonto aad u mahadsan tahay maalintii isniintii dareenkaaga suduha wallahi shucuurtida yimaado bulshadaas waxaan eegi doonaa haddana arrintii weli waxa taagan in ay dadku ka dhur sugayaan oo doorashooyinkii dabcan markaasi natiijooyinkoodii loo soo wada jeedo telefishinka qaranka Soomaaliland si toos ah ayay wariyaashoodu heegan ugu yihiin gobolada oo si toos ah dabcan idigu soo gudbin doonaa wax yar kadib waxaan sii wadi doonaa kulamada aan la yeelanayno waxaan isku dayi doonaa dabcan oo rajeynaya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo magaalada Laascaanood ku sugan asagana balkhadka si toos ah goordhow aan ula xidhiidhi doono oo bal arrimo fara badan aan wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale ka sheekaysan doono intaan wasiirka u gudbin koor waxaan eegi doonaa dhinaca heesaha wadaniga ayaan dabcan idin soo gudbin doonaa inta natiijada aynu markaasi sugayno wariyaasha wixii ka soo kordhana ay heegan ku jiraan oo si dabcan toos idigu soo gudbin doona ha fogaanina natiijada ugu horeysa gobolkay doonto ha noqoto degmaday doonto ha noqoto halkan ma si toos idiga soo gudbin doonaa iyaro nasashaa laakiin heesaha wadaniga aan eegno Biyaha
doorashooyin loo tartamay burxaaniyo eedla'aan doorashooyin loo tartamay burxaaniyo eedla'aan tiraba wax badan qabsaday tiraba wax badan qabsaday doorashooyin loo tartamay burxaaniyo eedla'aan doorashooyin loo tartamay burxaaniyo eedla'aan tiraba wax badan qabsaday tiraba wax badan qabsaday taageerada eebba iyo tawfiiqdan ku gaadhnay guul taageerada eebba iyo tawfiiqdan ku gaadhnay guul allana tala saartayo tawxiidka raxmaan cuskaday allana tala saartayo tawxiidka raxmaan cuskaday taageerada eebba iyo tawfiiqda ku gaadhay guul taageerada eebba iyo tawfiiqda ku gaadhay guul allana tala saartayo tawxiidka raxmaan cuskaday allana tala saartayo tawxiidka raxmaan cuskaday taageerada eebba iyo tawfiiqda ku gaadhay guul haddaan gaygayga qayto haddaan macdantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho haddaan gaygayga qayto haddaan macdantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho haddaan geerida tariibta haddaan ubadka uga hesho haddaan unugtiya tacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horaysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda haddaan geerida tariibta haddaan ubadka uga hesho haddaan unugtiya tacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horaysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay iigsiga himilada dalkeena iigsiga himilada dalkeena ayaanka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku horay ilaaca cirka ku horay harada buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatinle
hibada eebe ee ballaaran haddaan hantiyoon fayto hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay harada buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatile hibada eebe ee ballaaran haddaan hantiyoon fayto hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hanaanka dalkeenu qaatay halyeeyada miidhka jooga urmoodka saabta maanta hoggaanu midaysan hawsha hanaanka dalkeenu qaatay halyeeyada miidhka jooga urmoodka saabta maanta hoggaanu midaysan hawsha haddaynu helnay muwaadin haddan hanano dhulkeenna hantida waynuhu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heensaha garaadka haddaan ku hormayno yoolka haddaan ku hormayno yoolka haddaynu helnay muwaadin haddan hanano dhulkeenna hantida waynuhu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heensaha garaadka haddaan ku hormayno yoolka haddaan ku hormayno yoolka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hankii qaranka wadayaal dabcan weli si toosa ayaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland oo aanu idin soo gudbinayna wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan natiijooyinka la doonayo hordhaca inay ka soo baxaan doorasho degmeedka oo markaasi si toos ah idigu soo gudbin doono oo saacadan dambe ay qaar hawlahoodu socdaan waxa telefishinka qaranka Soomaaliland sidaan idin tilmaamay wariyashooda ay ku sugan yihiin goobaha markaasi dabcan lagu tirinayo ee komishanka xarumahooda ah oo ah cidda u dambaysa ee natiijadan si rasmi ah markaasi inay ku dhawaaqday iyadoo xaq ugu leh oo qaarkood la sugayo doorashooyinka natiijooyinka ka soo baxaya waqti ayay qaadanayaan waa la hubinayaa xisbiyadii ayaa jooga dabcan markaasi meelaha aadka loo sugayo waa degmooyinkaasi dhammaantood baan mid ka soo dul istaagnay sida tooska aan idigu soo gudbinay oo kamid ahaa degmooyinkii aan markaasi natiijadan sida tooska markaasi aan uga dhur sugaynay sidaan horeba u daawanaysaan khadar quuleeye cabdi cumar jibriil waxay heegan ku yihiin oo had iyo jeer ay taagan yihiin xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Hargeysa oo dabcan degmada Hargeysa oo markaasi halka ay ku soo xaroodeen natiijooyinka doorashooyinkii markaasi dadku codadkooda ay ka dhiibanayeen ee doorasho degmeedka markaasi gobolka Maroodi Jeex iyo Hargeysa markaasi ay noqonayso xarunta ugu ballaaran ee codadkaasi lagu tirinayo gobolka Maroodi Jeex dabcan ilaa hadda waa ku sugnaayeen goor dhaweyd waxa ay hadda
waraysteen oo si toos ay weydiiyeen bal halka ay marayso iyada oo mas-uuliyiinta xisbiyadu ay sheegeen in weli tirintii lagu guda jiro oo dabcan markaasi loo ballansan yahay maadaama saacad dambe ay noqotay in berito tirada halkaasi laga sii wado oo qaarkoodna lasii shaqayn doono ismaaciil markaasi waxa uu ka mid ah ismaaciil ka mid yahay mas-uulka u qaabilsan komishanka doorashooyinka qaranka ee Somaliland ee xisbiga wadani isaga iyo mas-uuliyiinta kale ee tiradaasi mas-uulka uga inta uu joogo ilaa caawa waxa uu ku jiray goobtaasi uu ka tirinayay markii dibadda u soo baxay goor dhaweyd ay warbaahintu weydiiyeen bal xaaladda u dambeysay iyo halkay natiijadaasi marayso iyo wax lagu ballamay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دمان صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادرك إنسان ساعد وحويا لبيو طبعا كيو صدقيو طبعا دقيقة الله إما كانوا كصبح إحنا جوبتي إذا كهذا يتشر واحد ترى هذا جوبتي وحلو تريني وحبل الله ما ترينيه وحيل تريني وحلو صوت تريه جوبي عضين تكرد عين بصندوق البلوغ صوت تريه هل كان وحل إيه فهم كلا دي 1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbiga markaa helay ay ku jiraan taasa la soo saaraya saddex xisbi qaran oo jooga markaas loo xaadirinayaa qof waliba wixii loo qoranayaan xisaabtu computerkana waa la gelinayaa dabeetana waa la daabacayaa dabeetana saddexda xisbiba waana shaabadaynayna way saxayaan marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalay bay bilaabatay tijaabadii 7 saakay bilaabatay 12 iyo barkii baanu joojinay imika laga soo baxay 12 iyo 13 daqiiqadood la waxa weeyaan waxa la dhameeyay sanaaduuqdaasi waa maalinta u horeysa had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaabaa maalinta u horeysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii marka dhinacna training buu kaga jiraa wad garan karaysaa la hore muu soo qaban shaqadan qof soo qabto waa naadir qofka ku jira 30% sanaaduuqdii hargeysa degmada hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gebile oo aanay raacsanayn Salaxle oo aanay raacsanayn Balligubadle oo intaasoo qura intii u faraha badnayda ayaa lagu jiray marka 30% baa la tiriyay habeen dambe waxaan rajaynaynaa in la laba laab noqoto waqtigiisa ama waxaan noo haran wax yar noqdaan ama ay dhameystiranto marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Somaliland yaanay ka degdegin caasimada goobahoodu aad bay u fara badan yihiin gobolka Maroodijeex waa 699 goobood buu noqonayaa maaha wax ciyaara marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran xisaabta dhexdooda lahayn oo komishanka wax muran la galay oo wax fari smooth ah oo sanduuqii loo baahday in la isla eegay marka horeba uu kambaloni ka jiray ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayna aanay soo saxiixin sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 ayna saxiixin saxiixeedu ka maqan yahay ayaa dib loogu furaya ilaa ma waxa la furay 6 sanduuq meelahaas la furay mid quro dhibaatay ma jiraan mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorano saxa la tiriyay wax dhibana ma jiraan ilaa maantana waxa ma yaalaan si fiican ba hawsha loo wada degdeg baana u dhamaanaysa insha Allah taala waanu idin sheegi doonaa warka xiga insha Allah taala aad iyo aad buu mahadsan yahay dabcan Ismaaciil oo kamid mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo hadda iyadu ka hor goor dhaweyd markii uu ka soo baxay xarunta si toosa warbaahinta ugu warramay oo wariyaasheeda Khadar iyo Cabdi Cumarna ay kamid ahayn wariyaashiisa tooska u joogay hadda wax kale ka soo kordhaana dabcan sidaas ayaan heegan ugu jirnaa oo idin soo gudbin doonaa xarumaha kale ee gobolada iyo degmooyinka dalka dabcan iyaguna saasoo kale wariyaashu markaasi ay dabcan idigu soo gudbin doonaan laakiin wali waxa halkaasi inooga cad in natiijada aynu ka filaynay gobolka Maroodijeex ama degmada doorashada Hargeysa aanay caawa waxba natiijo ka soo bixin oo dib loogu ballamay sanaaduuqda tirafbadnidooda iyo hawshooda la ogaan doono dadkii aadka uga dhur sugayay in Hargeysa wararkii ugu dambeeyay iyo xildhibaankii ay codeeyeen xilligan soo bixi lahaaba iyagu dib hawshoodu yar ahaan doontaayo caawa hadii doona xilligan iska seexan doonaan laakiin degmooyinka kale ayaan heegan ku jiri doona dabcan idin soo gudbin doona iyagana bal natiijooyinkooda goboladii aynu soo marnay ee Awdal markaasi Berbera Ceergaabo degmooyinka soo marnay iyaga wixii ka soo baxa isla halkan ayaad ku
ogaan doontaan oo dabcan caynaba oo goor dhaweyd iyadana dabcan natiijooyinkooda ku ay soo baxaan haddii aan markaan xaqiijino ee komishanka aan ku ogaano isla iminkaynu iyadana ogaan doonaa caynabyo wararka ka soo baxa iyadana oo meelaha hadda wararka ugu dambeeya wariyaashu inoo sheegaan ay tahay in natiijada soo dhejinteedii uu gacanta lagu haya daama laba soo dhejininba iyadana waan idiin soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda warfaafinta waraysi isagana toos oo aan la yeelan doono dabcan isagana goor waan idiin soo gudbin doonaa ha fogaanina natiijooyin fara badan ayaan ka ogaan doonaa hasiban dib ugu noqon doonaa waan wada caaweyno فرحتنا وسرك فرحتنا وسرك
wadaadi dhaha oo Somaliland wanaaga isku saacida وهاجاك داود يال سي توسا ayaa dabcan aad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland iyadoo kala barkii habeenkii dabcan dhaaftay waxaan aad iga maacinaa sida tooska barnaamijkan aad u daawanaysaan oo aan doonaynay in ku ogaano natiijooyin fara badan oo ah hawlaha ay dadkani sugayaan ee loo saameyn leelay oo ah inaynu ogaano natiijooyinka hordhaca ah ee doorashooyinka Soomaaliland ee dabcan dadka ay ka dhur sugayaan intaana ku noqon dhinaca waraysiga aan tilmaamay wasiirka la yeelan doono iyo wariyaasheeda dib aan ugu noqon dad fara badan oo ilaa intii aan hawada ku jirnay saacadii dheeraadka ahaa hawada si toos ah iyaguna noo daawanayay ayaan iyagana fursad siin doonaa bal halka ay nagala socdaan iyo qaabka barnaamijkan intaba ay la socdaan oo khadka telefoonada ayaan si toos ah barnaamijkan si xog bal iyagana fursad aan u siino maadaama oo barnaamijka si toos ah aynu hawada uga wada soconno oo aan doonayno bal idinka xogtiina inaan ogaano iyo sababta aad ogtiin khadka telefoonada ayaan goordhow dadka bulshada u gudbin doonaa oo si toos ah aan la xiriiri doonaa oo aan siin doonaa fursad ay markaasi barnaamijka la socdaan anagu aad uga mahadcelinayna dadka faraha badan leh ee baraha bulshada iyaguna Facebooka iyo markaasi YouTube-ka sida tooska ah nogala socda iyaguna su'aalaha nala soo wadaagaya ee soo gudbinaya waqtigooda aad ka uga mahadcelinayo ee markaasi tuulooyin kala duwan iyo deegaamada nagala soo hadlay kuwaasi oo dhamaantoodba ay ka mid yihiin dad fara badan oo hadda Facebooka si toos ah ugu jira oo soo qoraya guul Soomaaliland iyo arrimahan sida ay markaasi u arkaan doorashooyinkii oo ay tilmaameen doorashooyinka Soomaaliland oo mucjiso ay ahaayeen daladkii Somaliland ayaa kamid oo iyaguna warbixino fara badan ku soo qoraya Facebooka Cabdi Fataax Axmed oo isaguna jooga waddanka dibadiisa ayaa kamid dadka iyaguna fariimaha sida tooska ah page-ka telefishinka qaranka Soomaaliland ugu xiran noo soo diraya talooyinka iyo mowduucyada kala duwan oo dhamaantoodba aan aad uga mahadcelinay sida barnaamijkan la socdaan waxa kamid ah Aamina Halgan oo iyaduna hawarta jabnida Soomaaliland leh waxa ay tilmaamaysaa ay leedahay Aamina dabcan in qaranka Soomaaliland uu gacmaha isku duubnaado oo markaasi ay muhiim tahay bay tiri doorashadana ay xaqiijinayso guusha aan doonayno inaynu ka gaadhno arrimaha markaasi Soomaaliland oo aan rajaynayo Soomaaliland oo dhan baan guul leeyahay dabcan fariimaha ugu faraha badan leh Axmed Qurbani iyo dad fara badan oo ay kamid yihiin Naasir Anadi iyo Axmed Yaasin dhamaantood waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkaasi faraha badan leh sida tooska hadda page-ka ugu soo qoraya fariimaha kala duwan ee aan doonayno in dabcan markaasi ay soo gaarsiiyaan oo dhamaantoodba ah dad reer Soomaaliland oo meelo fara badan oo kala duwan jooga oo ka dhur sugaya in ay markaasi natiijada wax ka ogaadaan waxa dabcan soo gudbin doona iyagana sidaan tilmaamay natiijooyinka kala duwan ee markaasi sida tooska dabcan ay qaybta uga tahay waxa aan khadka telefoonka aan siin doonaa iyada oo dabcan markaasi natiijooyinka lagu dhawaaqi doono goboladana aan sidaan tilmaamay si toos ah idigu soo gudbin doono waxa iyagana dabcan aan markaasi sameyn doonaa in waraysiga isagana si toos ah goordhow aynu u gali doono oo wasiirka waraysigiisa aan idiin soo gudbin doono dadka faraha badan leh ee iyaguna dabcan khadka telefoonka ku jira iyo dadka faraha badan leh kale markaasi ay kamid yihiin dadkan Facebooka sida tooska iyaguna fariimaha ugu soo qoraya ee tooska noola socda waqtigooda qaaliga aad uga mahadcelinayo dhamaantoodba nimco jaamaci ay kamid yihiin halkan message-kooda ma akhriyi karo aad buu dabcan u fara badan yahay markiiba intaas oo kun oo message ay soo qoreen laakiin dhamaantiinba waan arkaynaa aad baan idin salaamayaa dhamaantiinba dadka iyaguna salaamaya page ku jira khadka telefoonka siin doona hadii si toos iyaguna dad ay ugu jiraan oo si toos ah hawada u soo gelin doona dadka khadka telefoonka ku jira xasan baan Roman ku wareejin doona bal khadka telefoonka inuu eegi doona hallo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ku soo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland iyo stuudiyaha magaalada Hargeysa وأنا كده وأنا عبد الرزاق. magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso walaalo عند عبد الله حاج سؤال. Xamda halka ka soo hadlaysaa ألو. Xamda halka joogtaa الحمد لله واحد شو ولا على غير البيسة. Xamda saacad dambe oo xilli dambe abaad dabcan la soo xidhiidhayo saqdi dhexe habeenkii ay dhaaftay ma dadkii codkooda dhiibtay natiijooyinka sugayay baad ka mid tahay mise qarnimada Soomaaliland umaad ku faraxsan tahay natiijooyinka gobolka laga wada sugayo guud ahaan عبد الرزاق عد كان وان ديتي قرن مدى الصومال ينبت يدي وانا سويت هذا عاو. ساسو سو جدا ka waran doorashada maxaa ay uga dhigantay Soomaaliland oo dadku sidoo codeeyeen iyo maxaad leedahay mud fara badan baa ku daawanaysa dadka Janiska u helay baa tahay inaad saqdan dhexe dadka la hadashid maxaad leedahay الله يقول لي قبل ما عيال نور رجالي إلهي دمشي إن شاء الله حمد aad baan kugu mahadcelinaya haddii wax natiijooyin soo baxaan isla imkan kugu soo gudbin doonaa insha Allah gobolka Maroodijo Xumad ku codeysaan u malinaya Hargeysa soo maaha
hargeysa maroodijeex gaandi baan ka codeeyey insha allah aad baa mahadsan tahay haddii natiijooyin soo gurlaan halkan aad nagala socon doontaa waqtigaa qaaliga ah eed barnaamijkan daawanaysidna annaga sharaf weyn bay noo tahay annaguna aad baan kaaga mahad celinaa sida barnaamijka oola socotid aad iyo aad baan ku leenahay kugu soo hambaliyeynaynaa aad baan udu mahadsan tahay walaashay calaykum asalaam waraxma walaalo cabdirasaaq sumaanaad baan ku salaamaya aad baan ku salaamaya walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso walaal magacayga deeq cabdijacaala leeda waxaan kaala soo hadlaya magaalada berbera ee gobolka saaxil aad baan deeq ku salaamayaa gobolkii saaxilna meelaha natiijooyinkeeda la sugayey ee mukhtaar hadda tooska halkan ugu jiray ka mid ahayde aan wareysanaynay gobolkii saaxil iyo ka waran bal natiijooyinka iyo doorashooyinkiiba alxamdulilah walaal aad baan u wanaagsanay maasha allah tabaaraka allah aad baan ku salaamaya adig iyo howlwadeenada shaqaalaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilandba walaahi gobolka saaxil aad baa looga soo jeedaa dadweynuhu aad bay ugu dhegtaagayaan qof kastaba wuxuu sugayaa natiijada codbixinta iyo goorta ay lagu dhawaaqi doono deeq aad baa umahadsan tahay halkan baan insha allah mukhtaar baa heegan ku jiro oo meeshii hortaagan oo hadda si toosa ugu jira halkan baan kala socon doonaa haddii gobolka saaxil wax ka soo baxaan daqiiqadaha soo socda insha allah xayaaka allah walaalkii aad baan kaga aad baan ku salaamayna adiga iyo daawadayaasha kale iyo dadka natiijada nala sugaya intaba aad iyo aad baa walaal mahadsantahay aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaa qaaliga aad baa mahadsantihiin daawadayaal dad fara badan ayaa khadka ku jira qaar baan fursado badan siin doonaa maadaama iyagu in badan fursada daawanayaan hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi aad baad mahadsantahay walaal aad baan kuusoo dhaweynayaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waa cumar aadan cumar oo jooga hargeysa aad baan waan ku maqlayaa walaal muraada iska gaabi telefoonka igala soco aad baad mahadsan tahay anigu waxaan soo jeedin lahaa talo oo ah in hore loo soo daayo waad mahadsan si aynu inaga oo natiijadaha inoo seexano waan jeclaan lahaa in hore loo soo daayo iyaguna waa jecelin laakiin shaqada fara badan awgood oo intaan wariyaashu hor taagan yihiin ay heeganka ugu jiraan qof walba jeclaan laakiin shaqada gacanta lagu hayo culayskeeda ayaa dabcan keenaysa oo commissionkuna hawshaasi uu ka shaqaynayo insha allah hadday hore usoo daayaanna anaguna horaan usoo daynaa insha allah la habsaami mayna haddii alla yidhaahdo horaan t v qaranka markaaba ay saa usoo daayaan baan usoo dayn doonaa aad baa mahadsan tahay hallo asalaamu calaykum عليكم السلام waa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso أنا أرجيت أن أسأل haye magacaaga محمود سليمان maxamuud barnaamijka waad la socotaan filayaa natiijadiina waynu wada sugaynaa dhammaanteen dadkii soo codeeyana waad ka mid tahay bal doorashada somalilan xiise fara badan bay lahayd waa laba doorasho isku sidkan maxaad leedahay qarannimada iyo doorashadaba doorashada somalilan waxaa leedahay guul bay ku dhamaadaa haye guul bay ku dhamaadaa maxaa natiijadii wax gorma natiijadii waa soo daynaa ku xidhnow telefishinka qaranka somalilan haddii alla yidhaahdo halkay ka soo baxdaba si deg degaan idigu soo daynaa insha allah natiijada markay saa usoo baxda haddii alla yidhaahdo insha allah aad baa umahadsan tahay daawadeel aad baa umahadsantihin dhammaantiinba waqtigiina qaaligaana dabcan aad baan idiga mahad celinaya barnaamijka sida tooska hawada aad ugu jirtaan ee aad ula socotaan aad iyo aad baa umahadsantihiin khadka telefoonkan ku yar socon doona haddii alla yidhaahdo hallo hallo asalaamu calaykum calaykum assalam waraxmatullahi wabarakaatu walaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso ugu horreyn magacaygu waa cabdiraxmaan ismaaciil cabdiraxmaan muraada iska gaabi telefoonka igala soco codkana kor u yar qaad magacaygu waa cabdiraxmaan ismaaciil oo jooga magaalada ceergaabo ceergaabaad joogtaa haa waa degmooyinka aadka looga sugayo halkanna weri cabdisaaq goor dhaweydu khadka si toosa ugu jiro weli natiijada waa sugaysaane bal ii waran aad baa umahadsan tahay daawadayaal mar kale ayaan khadka fara badan awgeed dib ugu noqon doonaa heesaan dib ugu noqon doonaa qarannimada jamhuuriyadda somalilan kadibna dadka fara badan awgeed baan kusoo noqon doonaa waqtigiina qaaliga aad baan iga mahad celinaya saacadda dambe sida tooska aad noola caweynaysaan iyadana aad baan igu mahad celinaya saqda dhexay dhaaftay waxaynu heegan ugu jirnaa inaynu ogaano natiijo kasta oo goob ka soo baxaysa si aan igu soo gudbino dhinaca heesaa iyo xasan baarlamaan dib ugu noqon doonaa qarannimada somalilan waxaad axasha waxaad didido nin
suqada inti la dhaqda hadhow la dargaa waxaad dhaxasha waxaad didido nin dhiira libta u soo dhaqsatee ninkii isdhigta dhashiisu qadaa ninkii isdhigta dhashiisu qadaa shacbigu dhaafsaday
dhaafsaday shacbigu dhaafsaday wixii oday dhaqan rasaas lala dhacay wixii guri dhisan gantaal ku dul dhacay iyo dembigii badheerka u dhacay dhammaan caafis baan ka wada dhigayo dhaafsaday shacbigu dhaafsaday
وعني ولقى تسنو عليه 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 وعني صمدي على كيكو تهالو أنا سادة شكسكا هالكي وصوبانيد أنا نبدا سلطانا أنا سوماليلا سيدي يتوبن كمي أنا أي سبناتي سبالا نينكي ودو سيرتادو مامير مرايسو حدكيغو وسارا لوغا سمدي علن كيكو تالو حدكيغو وسارا لوغا سمدي علن كيكو تالو أنا سادة شكسكا هالكي وصوبانيد أنا نبدا سلطانا أنا سوماليلا سيدي يتوبن كمي أنا أي سبناتي سبالا نينكي ودو سيرتادو مامير مرايسو haddaan gaygayga qayto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho haddaan gaygayga qayto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho haddaan geerida tariibta haddaan ubadka uga hesho haddaan huntiya tacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda haddaan geerida tariibta haddaan ubadka uga hesho haddaan huntiya tacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeenna hiigsiga himilada dalkeenna ayaan ka tubtisa haysta tirkiya dooga iftimay
hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay dilaaca cirka ku hooray 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 ilaa cirka ku hooray iigsiga himilada dalkeena iigsiga himilada dalkeena ayaanka tubtiisa haysta kirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay dilaaca cirka ku hooray 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 ilaa cirka ku hooray harada buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatile dibada eebe ee ballaaran haddaan hantiyoon fayto hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay harada buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatile dibada eebe ee ballaaran haddaan hantiyoon fayto hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay qanaanka dalkeenu qaatay halyeeyada miidhka jooga urmoodka saabta maanta hoggaanu midaysan hawsha qanaanka dalkeenu qaatay halyeeyada miidhka jooga urmoodka saabta maanta hoggaanu midaysan hawsha haddaynu helnay muwaadin haddaan hanano dhulkeenna hantida waynuhu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heesaha garaadka haddaan ku hormayno yoolka haddaan ku hormayno yoolka haddaynu helnay muwaadin haddaan hanano dhulkeenna hantida waynuhu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heesaha garaadka haddaan ku hormayno yoolka haddaan ku hormayno yoolka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay
calankaara guud ka sugnee kunidaysu taagneen kunayba taladi garanuu kushii hantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada markaan calankaara guud ka sugnee kunidaysu taagnayeen kunayba taladi garanuu kushii hantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada dadyow gabigiin gacmaha isqabsada allow ku gargaar gayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo allow ku gargaar gayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaha soo go'ay miyaan guralayn midhaha soo go'ay haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo guntiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaha soo go'ay miyaan guralayn midhaha soo go'ay allow ku gargaar gayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo allow ku gargaar gayga nabado dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo gefiya uma haysto ruux godobo ushayda xumaan kumaan guntano baanku ilaaway geeda baxshee godkaan degayba shaxdii galbiye godkaan degayba shaxdii galbiye gefiya uma haysto ruux godobo ushayda xumaan kumaan guntano baanku ilaaway geeda baxshee godkaan degayba shaxdii galbiye godkaan degayba shaxdii galbiye allow ku gargaar gayga nabado